السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا وما تنتهين مقال كانوا حرباينا إن كل وذاقوا مدحوين ترامب ومان عالم كوشيجي إن هشيسكي إيران يمريكان كمالين تبريه لصحيح دونه حدوا مدحوين ترامب برتيس ترو سوشيال كأيا قرال دير وكسو قري قرال كاسي محو كل يهينا وان إذن لو وذاقيا قضبضا هشيسكا لبضا دناعي كلا صحيحنا يان حد محيهين iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran oo sheegay in heshiiska laba waji uu noqon doono wajigan koobaad oo berri la saxiixayo iyo waji labaad oo wada hadallo kale la isugu soo laabanayo arrintaasina waan idinla wadaagaya madaxweyne Trump maalinta beriyaha 80 jir ayuu noqonayaa laakiin aqalkii cad waxa uu u bedelay meel lagu feertamo feerka la yiraahdo Ultimate Fighting Championship ayaa maalinta beriyaha lagu qaban doonaa aqalka cad isla markaana madaxweyne Trump waxa uu leeyahay sanad guurada 250aad ee xornimada Mareykanka ka soo wareegatay ayaa loogu dabaaldegayaa laakiin dadka dhaliila waxay leeyihiin dhalashadiisa ayaa loogu dabaaldegayaa saaxiibadii ayaana ka faa'iideysanaya arrintaasina waan idinla wadaagayaa sidoo kalena ninkii adduunka ugu taajirsanaa Elon Musk markii hore bilyaneer ayuu ahaa laakiin hadda trilyaneer ayuu noqday imisa sano ayaa maalin kasta 1 milyan oo dollar haddii uu qarash gareeyo ay ku qaadanaysaa lacagtiisa inay dhamaato arrintaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan maalnimadii shalay ahayd idin sheegay in labada dhinac ee Iran iyo Mareykanka ay heshiis isfaham ay gaareen isla markaana la filayo dhawaan in la saxiixo haddaba madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Social-ka qoraal dheer ku soo qoray waxa uu sheegay in heshiiskaasi maalinta beriyaha la saxiixi doono madaxweyne Trump qoraalkiisa waa dheer yahay laakiin nuxurka ayaan rabaa inaan idinla wadaago waxa uu dhaliilayaa horta madaxweyne Barack Obama uu leeyahay heshiiskii Iran uu la gaaray waxa uu ahaa mid fudud isla markaana qurux badan kaasi oo Iran u sahlayay inay hub nuclear yeelato 6 sano ka hor waxana uu sheegay in hadda heshiiska anigu aan la galayo yiri Iran arrintaas waa uu ka bedelan yahay oo waxa uu dhigayaa in aysan hub nuclear aysan yeelanin isla markaana xitaa aysan soo iibsanin aysan hormarinin wadamo kalena xitaa aysan ka soo qaadanin marka waxa uu leeyahay heshiisku waxa uu qorsheysan yahay in berri la saxiixo waxa la filayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland in lagu saxiixayo madaxweyne ku-xigeenkana uu dhinaca Mareykanka uu uga qayb galayo Trump isagu ma tagi doono wuxuu yiri isla markiiba marka la saxiixo waxa si rasmi ah loo furayaa marinka Hormuz cid kasta ayaana loo furayaa waxana uu sheegay xiriirka Iran ay la leedahay caalamkana waa uu ka bedelnaan doonaa sidii hore wuxuu yiri Obama markii uu heshiiska la gaaray Iran lacago fara badan ayuu siiyay laakiin hadda waxa uu yiri lacagahaasi annagu ma siin doono walow hadda heshiiska ay qayb ka tahay in Iran lacagihii hore looga xanibay la siiyo marka waxa uu sheegay in lacagaha Iran ay siinayaan aan bangiyo lagu kala xawileen laakiin gacanta laga siinayo waa sida isagu uu leeyahay waxa uu leeyahay sidoo kale uraniumkii Iran ay bacrimisay oo diyaaradaha Mareykanka ee B2ga ay daqeeyeen bishii June ee sanadkii hore waxa uu yiri inaga ayaa soo qaadanayna Iran wali arrintaasi waa ay diidan tahay mana aysan sheegin marka madaxweyne Trump wuxuu yiri waxaan si dhow ula shaqeynaynaa dawladda Iran mustaqbal wanaagsan ayaan Iran iyo bariga dhexe guud ahaantiisba aan u rajaynaynaa yiri marka waxaan jeclahay yiri in processkan uu noqdo mid si fudud ku dhamaada isla markaana waxaan rajaynayaa ayuu yiri in uu noqdo mid soo gabagaboobo marka madaxweyne Trump waxa uu leeyahay heshiiskii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka berri ayaa la saxiixaya haddaba qodobada wajiga koobaad ku jira maxaa kamid ah waxa kamid ah qodobada berri la saxiixayo 60 maalmood oo xabad joojin ah dhammaanba dhinacyada ishaya oo xitaa Lubnaan ay ku jirto oo Israa'iil duqeymaha ay ka joojinayso waxa kamid ah qaabab dawladda Iran lacagihii hore looga xanibay loogu fasaxi karo oo ilaa iyo 24 bilyan lacag ka badana marinka Hormuz in la furo oo cid kasta loo furo isla markaana Mareykanku uu qaado go'doominta uu Iran saaray in saliideeda ay dhoofiyaan waxa sidoo kale jira in wada hadallada ay sii soconayaan isla markaana la gaari doono heshiis kama dambaysa oo waara marka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa isaguna warbaahinada u sheegay in heshiiskan uu laba waji yahay wajiga koobaad waxa uu yiri hadda waa heshiis isfaham ah laakiin wajiga labaad waxa uu yiri waa mid la doonayo in xal waara looga gaaro colaadda Mareykanka Iran
u dhaxaysa waxaana uu sheegay in ay muhiimadeedu tahay dhinaca nukliyeerka heshiiskan isfahamka hadda waxyaabaha la saxiixayo nukliyeerka kuma jiro marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yidhi arrimaha nukliyeerka Mareykanka waxyaabo aan isku fahanayna waa ay jiraan oo ku heshiinay waxyaabo aanan ku heshiininna waa ay jiraan marka wejiga labaad ee wadahadallada ayaa dhinaca nukliyeerka dib loogu dhigay ayuu yidhi waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Ciraaqji oo arrintaasi ka hadlayay. What I would say now is that in the negotiations that will lead to the end of the war, there are two phases. The first one is a memorandum of understanding signed by Iran and the United States, and later on, negotiations for the second phase will start. And in the second phase, we will come to a final agreement. The topic of the nuclear issue has been postponed to the final agreement. There were issues on which we could agree and issues on which we could not. arrinta heshiiska Iiraan iyo Mareykanka haddii halkaasi aan ka gudbo madaxweyne Trump maalinta beriyaha 80 jir ayuu noqonayaa laakiin waxa la yaab leh aqalkii cad in uu u bedelay meel lagu feertamo madaxweyne Trump ilaa iyo 25 maalmood ay la soo dhaafay aqalka cad dhinaciisa koonfureed banaankiisa waxa laga dhisayay goob weyn oo feerka la yiraahdo Ultimate UFC oo Ultimate Fighting Championship lagu qaban doono habeen dambe oo Axad ah arrintan waa arrin la yaab leh in aqalka cad laga dhigo meel lagu feertamo marka ninka madaxda ka ah UFC-ga kambanigaasi oo Dana White la yiraahdo Trump saaxiibo ay yihiin siyaasad ahaanna Trump ayuu taageersan yahay xitaa waxa la leeyahay Trump share ayuu ku leeyahay marka 20kii bishii May ee la soo dhaafay ayaa waxa bilaabatay in dhismahan weyn oo idin muuqda banaanka aqalka cad laga dhiso 700 ilaa 900 oo shaqaale ah ayaa ka shaqeynayay xitaa waxa jirtay laba qofood oo ciidamada ka tirsanaan jiray cirka Mareykanka oo la kala yiraahdo Susan Douglas iyo waliba Paul Romano ayaa dacweeyay oo yiri arrintan hantidii shacabku ay lahaayeen ayaa si shakhsiyana looga faa'iideysanaya garsoore Obama oo magacaabay oo la yiraahdo Amit Mehta ayaa arrintaasi ka soo horjeestay shalay Jimcadii oo wuxuu yiri labadan qof ma aysan soo bandhigin waxyaabo ah in iyaga ay dhibaato ku tahay ama dad kale ay dhibaato ku tahay dacwadan ay soo gudbiyeen marka dadka dhaliila Trump oo dimuqraadiyiinta iyo siyaasiyiinta kale ay ka mid yihiin waxa ay leeyihiin arrintan waa arrin looga faa'iideynayo dadka saaxiibka la ah Trump isla markaana waa arrin musuqmaasuqa maadaama dhulka aqalka cad uu shacabka Mareykanka uu leeyahay saaxiibadii ayuu Trump uga faa'iideysanaya qoyska Trump xitaa waxay iibanayeen kaarar ilaa iyo 12,000 oo dollar in lagu iibinayo 250 ilaa iyo 12,000 oo dollar lagu iibinayo marka aqalka cad waxay leeyihiin arrintan waxa loogu dabaaldegayaa sanad guurada 250aad ee xornimadii Mareykanka ka soo wareegtay laakiin waa 4 July hadda 2 toddobaad iyo ka badan ayaa ka dhiman 4 July laakiin berri maxaa ku beegan dhalashada madaxweyne Trump oo 14 bisha June ah marka waxay leeyihiin tan madaxweynaha dhalashadiisa looguma dabaaldegaye waxay hordhac u tahay dabaaldegyada bilowday ee 250 guurada xornimadii Mareykanka ka soo wareegatay marka waxa jira xitaa tikidhada VIP-da in lagu iibinayo ilaa iyo 1.5 milyan oo dollar in lagu iibinayo marka arrintan waxa la leeyahay waxa ay muuqataa in looga faa'iideynayo saaxiibada madaxweyne Trump waxa sidoo kale hadda la leeyahay dhinaca ammaanka security-ga maadaama madaxweyne Trump golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiin kala duwan ay ka qayb galayaan waa in ammaanka aad loo adkeeyaa 7 hay'adood oo federaal ah ayaa ammaanka sugaya lacagtaasi marka ma lacagtii canshuur bixiyaasha Mareykanka ayay ka baxaysaa yaa lacagtaasi bixinaya ayaa la isweydiinaya qabanqaabada arrintan waxa ku baxday 60 milyan oo dollar laakiin Trump waxa uu leeyahay lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka laguma bixin oo waxa bixiyay shirkaddan ama kambanigan UFC-ga la yiraahdo waa Ultimate Fighting Championship marka sida muuqata arrintan hadda habeen dambe dhacaysa maadaama berri ay tahay dhalashada madaxweyne Trump dhalashadiisa 80 ayaa loogu dabaaldegayaa mise waxa loogu dabaaldegayaa 250 guurada xornimadii Mareykanka ka soo wareegatay arrintaasina muran weyn ayaa ka taagan sidoo kale waxa jirta madaxweyne Trump waa tii garsoore federaal ah toddobaadkii la soo dhaafay uu amray in magaciisa laga fujiyo xarunta Kennedy Center haddaba shalay oo Jimco ahayd 14 maalmood ayaa la siiyay in looga fujiyo shalay oo Jimco ahayd ayaa laga fujiyay magacii Trump in xarunta Kennedy Center waxaana garsooruhu markii uu amrayay in magaca Trump laga fujiyo Kennedy Center uu yiri Congress-ka ayaa iska leh xuquuqda magac u bixinta iyo magac ka bedelida xarunta Kennedy Center sidaas ayaana looga fujiyay hadda waxa soo baxday madaxweyne Trump bishii hore markii
check-upka caafimaadkiisa la marsiinayo isbitaalka Walter Reed lagu marsiinayay in uu la kulmay 22 dhakhtar oo specialist ah weli ma dhicin ayaa la leeyahay madaxweyne in 22 dhakhtar oo specialist yaala uu la kulmo dhakhtar qofku inuu noqdo iyo inuu specialist noqdo waa ay kala duwan tahay specialist waxa la yiraahdaa dhakhtarka waxyaabaha gaarka ah ku takhasusay marka 22 dhakhtar oo cudurro kala duwan ku takhasusay ayaa madaxweyne Trump eegay caafimaadkiisa markii bishii hore uu tagayay Trump waxa la leeyahay hadda maadaama 80 jir uu bari noqonayo waxa inta badan la arkayaa kulamada aqalka cad ka dhacaya marka qof kale hadlayo isagoo hurdaya waakii Sleepy Joe dhihi jiray hadda waxa la leeyahay Sleepy Trump ayuu isku bedelay xitaa mararka qaar waxa la arkaya warbaahinada qaar ay soo bandhigayeen madaxweynaha marka uu socdo diyaaradda Air Force uu ka soo dago si straight uma socon karo waxa la arkayaa isagoo weefaya taasina waxa la leeyahay calaamadaha Alzheimer's-ka ayay ka mid tahay qofku markuu la leemo iyo asaasaq cudurkaasi uu ku dhacayo marka madaxweynaha waxa aqalka cadow sheegay caafimaadkiisa inuu 100% uu fiican yahay laakiin waxa la arkaya lugihiisa bararan waxa la arkaya gacmihiisa madmadow marka 22 specialist inay arkaan madaxweynaha arintaasi shaki weyn ayaa hadda ka soo baxaya ugu dambeyntii ninkii adduunka ugu taajirsanaa ee Elon Musk maalmadii shalay ahayd taajirnimadiisii bilyaneer ayuu marayay laakiin trillineer ayuu gaaray sababtu maxay tahay shirkadiisa SpaceX ayaa shalay public noqotay waxaana loo fasaxay dadka shacabka inay shareer ka iibsan karaan suuqyada saamiyada ayayna soo gashay marka 1.1 trillion ayaa hadda lacagtiisu ay kor u sii dhaafaysaa 4 nin ee bilyaneerada ah ee isaga ku xigtay marka lacagtooda la isku daro hadda isaga ayaa ka lacag badan marka waxa la leeyahay haddii maalin kasta Elon Musk lacag $1 milyan uu qarash gareeyo waxay ku qaadanaysaa lacagtiisu inay dhamaato 2740 sano marka waa sanado aad u fara badan Elon Musk marka hadda waa ninka adduunka ugu taajirsan waana qofkii ugu horeeyay ee trillionaire noqda hada magaca aad u dhib badan yahay marka waa qofkii ugu horeeyay ee $1 trillion gaara guud ahaan caalamka ma jirin qof hore lacagta intaasi la eg hal mar yeeshay markii hore millionaire iyo billionaire ayaa lagu tarjumi jiray laakiin hadda waxa sheekadu waxay noqotay trillionaire inuu noqday ninkan Elon Musk marka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya asxaabi warbixinadii aan maanta idin soo ururiyay intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sadaayo nabadgelyo